saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ciidamada qalabka sida ee Puntland kuwaas oo isugu jira military, police iyo asluubta ayaa maanta kulan isugu yimi magaalada Garowe ay ku taageerayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland gaar ahaan kuwada cusub oo gaaraya 49 oo ka mid ah 60 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland. sidoo kalena waxay ka hadleen baahiyaha gaarka ay qabaan ciidamada oo ka cabanaya muhiimadda ay lahaayeen oo la baalmaray taas ay ku muujinayaan hab murtiyeed iyagoo si gaar ah dowladda federaalka oo ay taageersan yihiin qudheeda aanay ka helin wixii dalka iyo dadka kaga difaaci lahaayeen cadawga ku soo duulay waa sida hadalka u dhigeen sidoo kalena dhanka amniga Puntland ka dayriyay waxna hadaladoodii ka mid ahaa ciidankii dalkan nahay booliis iyo daraawiish oo dalka loogu talagalay oo daacadda u shaqayn jiray dakhliga iyo dhaqaalaha dalka hooya laga helay iyo qalabka iyo dareenskii dalka loogu talagalay dowladeenu looma siin ahayn dalku wuxuu marayaa meel aad iyo aad u hooseysa jenaraal biaro baa la yidhahdaa annagu dowladdan ka tirsannahay hadda systemkan hadda jira baa ka tirsannahay haddaad aragto wax foorana hase yeeshee adeer haddii hoobaaq lagu qubanayo dee adeer ka joog baa la dhahayaa danka hadal baa la yidhahdaa arrinta tan ninun hadibsan nimanka xildhibaanada horta hambalyo baan idiin diraynaa 49 jadiida baa tihiin war fakera war cidda danta dalka u ahay waa idin muuqan karnaa haddaydan isyeelyeelayne fiiriya oo ka fiirsan kuwa soo noqday oo waxba lagu aamini karin baa jira ka feejignaada niman yahow maanta idinka ayay garbaha mas-uuliyadda Puntland idiin saaran tahay waxaan fariin u dirayaa dowladda federaalka fil caalamiinka intaanu meesha joognay weli kama hayno wax agab ciidana iyo daryeel dadka iyagu idin jecel yahay waa Puntland iyadaa dhashay federaalka gaajadaasaa loo idinku taageera waxaan idin leeyahay buraashada idinkama hayno wixii adduunku ku deeqana idinka haya war dalka haddii la wada leeyahay oo dalku loo siman yahay annaga agabka adduunku bixiyo shabaabka koonfur joogaa nooga sadroon ama iiban ku heleen ama arrinka la heleen dalti daacada oo daljoogaan rabnaa oo dalka difaaca waa naga duulay dimuqraadiyadda ogol dictator iyo professor baa isu kaaya xigay jananada hala jalleeco mudug 9 gobol way Puntland mudug waa furin cayn waa furin sool gacanta lagu dhigay nugaalna waa furin barina daacish iyo shabaab baa isku laaya intay dadka kala dhameeyeen meesha la yiraahdo sanaag waa furin sidaa darteed dictator iyo professor iyo master mid ma baahin diaspora ma baahin waxaan idinka sugaynaa waxaan tida noo maamula oo aan akoon lahayn oo aan baasaboor lahayn oo ciidanka dhisa oo xuduudaha soo celiya oo ummadda xaqeeda iyo xaqiisa kala yaqaan Ahmed Sham, Home Cable TV, Garowe.